wuxuu yidhi waxaan tegi jiray meelaha ay dadku iskugu yimaadaan sida baararka, meelaha laga dukaamaysto iyo darjiimooyinka lagu nasto. Kadib ayaan gabdhaha isha la raaci jiray, midii aan ku qanco ayaan hadal ku bilaabi jiray. Kadibna jacayl intaan ku beero ayaan la imaan jiray guri ii gaar ahaa oo ku yaalay magaalada bannaankeeda, meel aad u geedo badan dhexdooda. Kadib ayaan hawsheeda ka bilaabi jiray inaan shido layr ama nal midabkiisu gaduud yahay. Suuliga ayaan geli jiray, kadib ayaan soo qaadan jiray xarig iyo bir aan madaxa kaga dhufto. Dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. Fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iidaysta muuqaaladiisa. Subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koobaad. Mahadsanid walaal. Assalaamu calaykum. Dunidan waxaa soo maray qisooyin kala duwan, kuwaasoo ka dhacay meelo kala duwan oo daafaha dunida ku kala yaal. Iyadoo ay sidaas tahay ayay haddana qisooyinku kala xanuun badan yihiin oo kala duwan yihiin. Janaalkan Sahanwade waxaad ugu imaanaysaa qisooyinka dunida daafaheeda ka dhacay oo aad badankiin u baahantihiin inaad wax ka ogaataan si aad u noqoto qof wax badan kala socdo dunidan. Haddaba maxay tahay qisadan aan maanta idiin wadno? Runtii markaad daawato qisadan wax badan ayaad qiiroon doontaa. Haye, maxaan sugaynaa? Aanu bilowno. Wax yar ii sug inta aanan bilaabin aan isweydiino su'aal adiga iyo anigaba noqosaysa. Su'aasha ayaa waxay tahay sidan: barbaarinta ama abaabinta ubadka saameyn ma ku leedahay habdhaqanka ay yeelan doonaan marka ay weynaadaan? Haddii ayse ka xumaato barbaarintu, saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa noloshooda dambe? Qisada ciwaankeeda ayaa u dhacaysa sida tan: dilaagii khatarta ahaa 72 dumar ayuu kufsaday kadibna dilay. Ma rumaysan lahayd haddii aad maqasho in hal nin uu keligii dilay 72 dumar ah, weliba inta uusan dilin ka horna kufsi kula kacay? Daniel Camarejo wuxuu ahaa nin u dhashay waddanka Colombia ee dhaca qaaradda Latin America. Wuxuu ku dhashay magaalada Bogotá ee caasimadda u ah dalkaasi Colombia. Hooyadii isagoo yar ayay dhimatay, aabbihiina wuxuu ahaa nin ganacsado ah oo daroogada aad u isticmaali jiray. Daniel hooyadii markay dhimatay ayaa aabbihiis go'aan ku gaaray inuu naag kala guursado, kadibna uu Daniel halkaas ka helo ugu yaraan xanaano waalid, maadaama uu isagu ahaa nin inta badan ganacsi ku mashquulsan oo habeenkiina isagoo cabsan guriga u soo hoyda. Haddaba maxaa dhacay? Daniel aabbihii wuxuu u horseeday nolol adag oo cunug yari uusan xamili karin. Islaantii eedadiis ahayd ee uu aabbihiis u soo guursaday inay isaga xanaanayso waxay u noqotay cadaab loo soo diray oo aan haba yaraatee wax asxaana ama naxariis aad dareensiinin wiilka yar ee u baahan booska hooyadii bannaysay in loo buuxiyo, inkastoo aan booska hooyo marna la buuxin karin. Muddo kadib waxay islaantii dhashay 2 gabdhood oo Daniel ku aabba ah, waxaana la gaaray da'dii ay iskoolka ku aadi lahaayeen. Daniel iyo gabdhihii waxaa la geeyey hal iskuul oo middaas waa loo cadaalad falay, laakiin dhanka kale ayaa cadaalad darro ka jirtay oo Daniel 24 saacba waxaa la siiyaa xabad yaroo rooti ah iyo koob shaah ah. Gabdhahana inta quraac fiican la siiyo ayaa mid kalena boorsooyinka loo geliyaa si ay marka ardada break time u soo baxaan ay u cunaan. Lacag yarna waa loogu daraa oo ay ku gataan waxay u baahan yihiin. Laakiin Daniel subax ka subax ayuu xabad rootiya iyo koob shaah ah leeyahay. Aabbihii uma dacwoon karo oo islaanta warkeeda keliya ayuu maqlayaa. Hadduuse u sheego wuxuu ka cabsadaa inta uu aabbihii maqan yahay in la garaaco. Intaas keliya maahe, uniform uu iskoolka ku aada xitaa ma haysto, oo dharkii ay gabdhaha iska naceen ama laga beddelay ayuu ku aadaa iskoolka. Markaas ayay ardayda kale ku caayaan lagaroone iyo hadallo aan dhegihiisa u roonayn. Wuxuu noqday arday ka takooran ardayda intooda kale. Magaalada uu ku nool yahay ehel kale uma joogo oo aan ka ahayn habaryartii oo iyadana looga digay haddii uu aado inuu ciqaab la kulmi doono. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu habaryartii soo maray gurigeeda isagoo iskoolka ka yimid. Habaryartii markay aragtay ayay ka naxday muuqaalka wiilkeeda iyo duruufta ka muuqata. Markaasay iska ilmaysay oo wiilkii inta laabta gelisay ku oyday. Waxba uma qaban karto, intay madaxa u salaaxday ayay labis u soo iibisay, lacag yarna soo siisay. Waxayna ku tiri markaad iskoolka aado wax ku gado, markaad wax u baahatana aniga ii imow, anigaa ku siinaye. Daniel isagoo faraxsan ayuu habaryartii ka soo tegay, laakiin maxaa ka raacay booqashadii habaryartii? Daniel dhar waxa uu ka haystay hal joog oo caadiya iyo kii dharka gabdheed ahaa ee uu iskoolka ku aadi jiray uniform ahaan. Wuxuu aad ugu faraxsanaa labiska ay habaryartii u soo iibisay. Guriga markuu yimid kadib ayuu gashaday dharkii cusbaa ee loo soo iibiyey. Kii kalena wuxuu la dhaqaaqay dhaqmo oo markii horeba ma haysan wax uu xitaa iskaga beddelo. Isagoo dharkii dhaqanaya ayaa waxaa u yimid eedadii oo ku aragtay labiska cusub iyo lacagtii yarayd oo meesha u taal, maadaama uusan haysan boorso uu wax gashto.
intay ku qaylisay ayay ku tiri xageed ka keentay dharkan cusub ma soo xadday oo tug miyaad noqotay mise dawarsi ayaad bilowday oo iskoolka maba aadid iyo hadallo kale oo aan u roonayn dhagihiisa iyadoon jawaab ka sugin ayay ku tiri ha yimaado aabbaha isagaa ku yaqaan siduu ku yeelaye wixii la joogaba fiidkii ayaa odaygii aabbihii ahaa oo cabsan yimid iridda markay ka furtay ayay hadal uga bilowday maanta waxa dhacay ma garanaysaa wuxuu ku yidhi maya ee maxaa dhacay waxay si jees ah ku tidhi wiilkaagu dawarsi ayuu bilaabay oo iskool ma aado maantana xatooye ayuuba ku darsaday oo labis cusub ayuu xidhnaa haddaadan adiga u soo gadin xagguu ka keenay bal weydii kadib odaygii ayaa gabar yar oo isaga la dhalatay u diray oo yidhi bax iigu yeer markaasuu inta suunka furtay wiilkii yaraa si xun u garaacay isagoon wax su'aala weydiin muddo wixii la joogaba waa la soo qaangaaray oo gabdhihii iyo daaniyaalba waa la weynaaday laakiin daaniyaal wuxuu go'aan ku gaaray inuu waxbarashada ka hadho taas beddelkeedana uu dumarka oo dhan cadow ka dhigto oo uu laayo isagoo intaasoo xumaana ku soo barbaaray ayuu haddana arkay gabdhihii la koolkoolin jiray middood oo gabdhaha xun ee naad kalaabiska ka shaqeeya ka mid noqotay waxaana uu isla maalintaas go'aan ku gaaray inuu dumarka oo dhan gaar ahaan gabdhaha yaryar uu colaad u qaado daaniyaal waa qof nooce ah muuqaal ahaan mar uu muuqaalkiisa ka hadlaayo wuxuu leeyahay anigu ma ihi nin aad u qurxoon mana ihi jilaa ama fannaan ama ciyaartooy sababtoo ah gabdhaha intooda badani dadka xirfaddaas leh ayay xiiseeyaan wayna u sahlan tahay inay soo jiitaan laakiin waxaan iska dhigi jiray baadari wadaad kiniisadeed yacni sidaa darteed way i rumaysan jireen markaan wax u sheego hadalladiisii waxaa ka mid ahaa weligay gabar aan la hadlay ima diidin waddo aan mar marayna dib uguma soo laaban oo uu ula jeedo inuu ahaa qof sirtiisa aad u ilaaliya kana fogaanaya in la barto waayo haddii aad maalin walba hal jid keliya marto waa lagu baranayaa oo caan ayaad ka noqonaysaa xaafaddaas qaab noocee ah ayuu dumarka u ugaarsan jiray una dili jiray daaniyaal kamaarajo daaniyaal isagoo ka sheekaynaya qaabka uu gabdhaha u ugaarsan jiray wuxuu yidhi waxaan tegi jiray meelaha ay dadku iskugu yimaadaan sida baararka meelaha laga dukaamaysto iyo darjiimooyinka lagu nasto kadib ayaan gabdhaha isha la raaci jiray middii aan ku qanco ayaan hadal ku bilaabi jiray kadibna jacayl intaan ku beero ayaan la imaan jiray guri ii gaar ahaa oo ku yaallay magaalada bannaankeeda meel aad u geedo badan dhexdooda kadib ayaan hawsheeda ka bilaabi jiray inaan shido layr ama nal midabkiisu gaduud yahay suuliga ayaan geli jiray kadib ayaan soo qaadan jiray xadhig iyo bir aan madaxa kaga dhufto intaas kadib kufsi ayaan kula dhaqaaqaa kadibna xadhigga ayaan ku ceejiyaa sidaas ayayna nafta kaga baxdaa waxaa la yaab leh inuu daaniyaal yidhi marka ay sakaraadka tahay oo ay nafta ku daba yar tahay ayaan raaxo badan dareemaa xilligaas ayaana iigu dambaysa miyir oo waan miyir daboolmaa waxaana soo naaxaa oo miyirkaygu dib iigu soo noqdaa muddo kadib iyadoo mar hore ay nafta ka baxday intaas kadib ayaan gabadha dhimatay ilkaha ka bixiyaa si aan loo aqoonsan kadibna meydkeeda ayaan hawdka ku tuuri jiray daaniyaal gabdhaha uu sidaas ku sameeyey waxaa ku jiray kuwa aqoon-yahan ah kuwa kalaabyada ka ciyaara kuwa saxaafadda ka shaqeeya iyo kuwa heesa intuba weligiisna kaamira isagoo wax dilahaya ma aysan qaban wuxuu gabdhaha u dili jiray si qarsoodi ah oo aanan marnaba laga shakinayn kolombiya waa dal ay ku badan yihiin dilalka qarsoon mana lahan baaritaanno hormarsan oo si cajiiba wax u baara haddaba nuxurka aan kala baxayno sheekadan ayaa ah in xaasidnimo qof bini'aadana lagu sameeyo ay noloshiisa beddeli karto siiba carruurta yaryarka ah daaniyaal wuxuu cuqdadan iyo xaasidnimadan uu dumarka u qaaday kuna laynaya ay ku sababtay in loola dhaqmay si aan loola dhaqmin ilmo yar oo ay hooyadiis isagoo yar dhimatay waana sababtaas midda ku abuurtay inuu dumarka oo dhan ifka u naco waxaan filayaa inay qisadan leedahay dareen xanuun badan oo ka soo bilowday carruurnimo ilaa uu qofkaasi weynaaday haddaba waxaa la gaaray waajibaadkaagii fadlan ka mid noqo asxaabta ku xidhan janalkan si aad u hesho fiidiyowgan iyo kuwa la mid ah sheer iyo like wixii aragti ahna hoos noogu reeb waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin